saaxiibayaal soo dhawaada waa barnaamijkeennii aan uga hadli jirnay arrimaha tiknoolajiyadda iyo wixii markaa ka cusub caalamka tiknoolajiyadda. Waxaan ku bilaaban doonaa xalqadeennan warar laga helayo telefoonka OnePlus 11 Pro oo la rajaynayo in uu bilowga sanadka cusub soo galo suuqyada caalamka. Telefoonka OnePlus Pro ayaa ka duwanaan doona kii ka horreeyay isaga ee OnePlus 10 Pro. Tusaale ahaan OnePlus 11 Pro baterigiisu waxa uu noqon doonaa 5000 mAh halka OnePlus 10 Pro uu ahaa baterigiisu 4500 mAh. waayahay wax yar aan isla eegno sifooyinka telefoonkan la rajaynayo inuu bilaa soo socda suuqyada caalamka uu soo galo. shaashada mobilkan ayaa waxay ahaan doontaa 6.7 inch nooca AMOLED loo yaqaan. Sida aan la socono noocyo kala duwan oo shaashada ayaa jira, marka asaga shaashadiisu waxay ahaan doontaa nooca loo yaqaano AMOLED-ka. RAM-ka mobilkan ayaa laba qaybood ku imaanaya. Mid wuxuu ahaan doonaa 8GB, maskaxdiisuna waxay ahaan doontaa 128. kan kalena RAM-kiisu wuxuu ahaan doonaa 16GB, maskaxdiisuna waxay ahaan doontaa 256GB. wuxuu telefoonkan waa OnePlus 11 Pro gadaal ku lahaan doona 3 kaamiro oo tan koowaad ay tahay 50 megapixel, tan labaadna ay tahay 48 megapixel, tan saddexaadna ay tahay 32 megapixel. yacni telefoonkan kaamirooyinkiisu aad bay u wacnaan doonaan. telefoonkan wuxuu ahaan doonaa fast charging, yacni si degdeg ah ayuu ku buuxsamayaa. USB-giisuna wuxuu noqon doonaa nooca loo yaqaano Type C-ga. waayahay haddana aan aadno halkaas iyo shirkadda DJI oo caan ku ah inay soo saarto diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn ee muuqaalada lagu duubto iyo sidoo kale waxyaalo kale. shirkadda ayaa weli sii wada taxanaheedii gimbaliska ama usha qabata telefoonada markii muuqaal la duubayo, si ay uga ilaaliso lacalla qofku isagoo ordaya haddii uu muuqaal duubo muuqaalkaas in galab iyo dhaqdhaqaaq ay gasho. shirkaddu waxay soo bandhigtay laba ul mobile oo kala ah Osmo Mobile 6 iyo Osmo Mobile SE. labadan gimbalis oo telefoonka ku xakameynaya marka muuqaal duubaysid, si adigoo ordaya lacalla haddii aad duubtid aysan galab iyo dhaqdhaqaaq muuqaalka kaaga gelin. Osmo Mobile 6 baterigiisu waa 1000 mAh wuxuuna ku haynayaa 6 saac iyo bar, halka Osmo Mobile SE baterigiisu yahay 2600 mAh wuxuuna ku haynayaa 8 saac iyo bar. waayahay markaan aan isla eegno qiimaha gimbaliskan ama ushaan telefoonka ku xakameynaysa markii aad duubaysid. Osmo Mobile 6 qiimihiisu waa $107 halka Osmo Mobile SE qiimihiisu yahay $176. dabcan haddii aad ka mid tahay YouTuberiska ama TikTokeriska ama qof caadi oo muuqaalada duubta, ushaan telefoonka ku xakameynaysa aad ayay ku anfacaysaa si ay muuqaalkaaga uga ilaaliso in ay galab ama dhaqdhaqaaq u galo markii aad duubaysid. dagaalka YouTube-ka iyo TikTok oo mar kale cirka isku shareeray, arrin yaab ku noqotay dad badan ayaa dhacday dabayaaqadii sanadkii hore, gaar ahaan bishii December. TikTok ayaa markii ugu horreysay ka sarmaray shirkadaha waaweyn ee Facebook-ga iyo Google-ka. Google-ka iyada waa yar iska leh YouTube-ka, yacni Facebook iyo YouTube-ka ayuu ka sarmaray. TikTok waxyaalaha ay uga hormareen YouTube-ka iyo Facebook-ga waxaa kow ka ahaa muuqaaladooda kooban ee cajiibka ee qofku uusan ka daalin ee maanta oo dhan uu hoos isaga wadayo. yacni waa muuqaalo kooban oo waqti badan qofka aan ka qaaday. arrintan argagax ayay ku noqotay Facebook iyo YouTube-ka, waxayna bilaabeen in ay tartan adag la galaan. tusaale ahaan Facebook waxa ay si degdeg ah usoo kordhiyeen barnaamijkooda Reels-ka, halka YouTube-kuna ay soo kordhiyeen barnaamijkooda yacni Shorts-ka. Reels-ka iyo Shorts-ka ee Facebook iyo YouTube-ka ay soo kala kordhiyeen, labaduba waa muuqaalo kooban oo halkaa la soo geliyo. YouTube-ka ayaa go'aansaday markaan in uu shirkadda TikTok madax dhulka ugu dhufto, wuxuuna sheegay in YouTuberisku u ogolaan doono bilowga sanadka soo socda in muuqaalada ay soo geliyaan Shorts-ka oo ay ka sameyn karaan lacag, yacni ads-ka ka soo xarooda xayisiinta muuqaalada koobanna 45% uu YouTuber ku qaadanayo, 55% ay shirkadu qaadan doonto. yacni awal kaliya haddii YouTuberisku ay lacag ka sameyn jireen muuqaalada dhaadheer, hadda Shorts-ka iyo muuqaalada gaagaaban ee ay barkooda YouTube soo geliyaan lacag ayay ka sameyn karaan. arrintaas YouTube-ku wuxuu uga dan leeyahay inuu iska dhiciyo iskana riixo madaxan dhulka ugu dhufto shirkadda TikTok oo booska iyo suuqaba ku ciriirisay. WhatsApp-ka oo qorsheynaysa in ay soo kordhiso arrin ay dad badan weligeed sugi jireen oo isdhihi jireen niyo WhatsApp-ka arrintaa may soo kordhiso. sida aan la soconno, WhatsApp-ku wuxuu kow ka yahay applicationada fariimaha ugu badan la isugu diro ee dadku inta badan dunida daafeed ay adeegsadaan. laakiin cilada uu leeyahay waxa weeye haddii aad fariin qof u dirtid, fariintaasna ay kaa khaldanto ama ereyo khalad ku jiraan ama ereyga aad si khaldan u qortay, awood uma lihid inaad editing ku samaysid. WhatsApp-ku waxay sheegeen haddeertaan in qofka ay u suurtagelayso in uu fariintiisa editing ku sameeyo. qorshahaasna iyo updatingkaasna ay soo wadaan mar dhow oo ay ku soo dari doonaan WhatsApp-ka.
يعني fariintii aad dirtid haddii ay u qaldan tahay ama is dhahdo qofku ma fahmi karo waxaad ku samayn kartaa editing oo dib ayaad ka sixi kartaa saaxiibayaal barnaamijkeena asbuuclaha ah oo aan uga hadlaynay arrimaha tiknoolajiyadda iyo wixii markaa ka cusub caalamka tiknoolajiyadda intaas ayuu ku egyahay waxaana si xushmad iyo qadarin ku jirto in kaga codsanayaa in haddii kanaalkayga aad horey u taxnayd aad like saartid haddii aad hadda ku cusub tahayna in aad like iyo subscribe ii saartid si ay kuu soo gaaraan arrimaha tiknoolajiyadda iyo suuqa tiknoolajiyadda iyo caalamka tiknoolajiyadaba wixii ka cusub markaas saaca bisaaca